waxaan xudsanayaa ninkaas inaan dib loo soo celin Soomaaliya haddaan la rabin in ay burburdho laa ilaaha illa allah farmaajo dhaqan aan aqoon iyo cod aan aqoon iyo lacag aan la arabo la maqo dadka uu kala gadanhayo iyo gabdho la dilo iyo rag la iibsadaan ku naqana anagu dadkii buu laayay intuu xilka hayay burmageydadii buu laayay 8,000 oo rag ah oo dhalinyaro ah ayuu u dhoofiyay Itoobiya iyo Eritrea laa ilaaha illa allah kaas waxa weeye ninba waxa la yiri wareede ka waran xoolo la'aan iyo biyo la'aan ka war markaas waxa ma markaas naglaan ka markaas ashhaad laa ilaaha illa ana waxay noola mid tahay ashhaad ba soo laabto farmaajo dhaqan aan aqoon iyo cod aan aqoon iyo lacag aan la arabo la maqo dadka uu kala gadanhayo iyo gabdho la dilo iyo rag la iibsadaan ku naqana anagu doonayna dad dambe la iibsado doonayna burbur dambe ee Soomaali la'aan doonayna Soomaali ma rabnaa farmaajo doonayna asaga iyo wixii ku maqfaan waxaan leenahay Ilaahay meel dadka ka bixiyo taas waa halkaas 12 madaxweyne taageersanka oo jecesha inuu ku soo baxdo ordaana waxaan marka hore waxaan danaynayaa ummadda Soomaaliyeed qofkii wax gala baan danaynayaa shakhsiyan haddii noqoto ninka la xaaf noqdoonka weyn ee rugcadaaga ee hore u soo shaqeeyay ee kontonka sano ganacsiga ahaa ee kontonka sano siyaasadda ka dhex muuqday ayaan taageersanahay 100% ku soo baxay waxaan wuxuu shay nin wax garada weeye nin siyaasi ah weeye nin waayaariga weeye wuxuuna dalbay diinta islaamka in la isku xukumo buug kitaabka jaamaca quraanka ku qaat nin ka sheekeynaya Yurub iyo Mareykan iyo qurbo ka sheekeynaya anagu doonayno qurbo waa midna weerisay waa midda beenta noo sheegtay tiri suuq baan dhex gelinayna sokor baan dhex gelinayna dadka guriyuhu ka qarxeen guriyaan u dhisayna been noqot anaga lagu sheeg nimanka qurbaha ka yimaado liyaado maxaa lagu sheegaa manifestime diaspora anagu doonayno waa diinay aniga waxa la yiraahdaa baniin Axmed Nuur Jaabiri waxa aan ka hadlaynaa doorashada hadda ka soconaysa oo magaalada Muqdisho ka soconaysa waxaana rabaa in aan ka jawaabo doorashada ragga istaahila in loo doorto iyo ragga istaahilin farmaajo waxaan codsanayaa inaan la dooran waayo waxaan ku sababaynayaa hooyooyinkii caruurtooda uu gatay ayaa wada oodaya ilaa iyo haddana qanci waa laga laayay waxaana maqalnay caruurtii waa waday waddanka wuxuu geeyey Eritrea waxaana maqalnay wuxuu ka gatay Itoobiya ilaa iyo haddana warimi haddaa gadatana noo sheeg hadday dhintayna noo sheeg hadday nool yihiin noo sheeg ayaa lagu hayaa inta waa ka jawaabi laaya waxaan xudsanayaa ninkaas inaan dib loo soo celin Soomaaliya haddaan la rabin in ay burburdho arrintii qalbi dhagax baa ku taagan waxa ku taagan arrintii Cabdishakuur oo intuu dadkii uu laayay uu sawili ka tacsiyeyn waxaan codsanayaa ninkaas inaan la dooran ninkii Soomaaliya wax taraya in la doortaan raalli ku nahay nin kasta ha ahaado ninkii Soomaaliya wax ugu yaal oo dalka wax ugu yaal baan doonaynaa in la doorto annagu haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed anoo afkooda ku hadlaya farmaajo istilaabta saaran ha loo daayo hadhowna ha lagu soo ogo dacwo ka caalamiya حسين سنة توكم يدورش هذا عيسى إن محمد عبد الله فرماته الشرح ودب صلاته إنه هراء هكا مثلا حران إني تاي مقطعة dadkii buu laayay intuu xilka hayay burmageydadii buu laayay 8,000 oo rag ah oo dhalinyaro ah ayuu u dhoofiyay Itoobiya iyo Eritrea dadkii Soomaaliyeed buu u dhiibay dawlado kale oo sheeye kiiska uu galaya tiri kara lama tiri koobi karo duu maanta soo noqdo dadba noolaan maayo Soomaaliya hadduu ku soo laabto waxba ka harmaya Soomaalida waa iibsanaya dekadiina waa u bixiyay wala baarlamaanka ma horkeenin baarlamaankiina waa u kala jabiyay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
khaasatan reer galmudug magaalada caasimadda ee gaalkacyo gobolka mudug waxaan ka hadlayaa arrinta maanta u soo fadhiistay waxay tahay doorashooyinka ka socda dalka Soomaaliya waxaan rajeynayaa insha Allah in Ilaahay uu mid wanaagsan oo dalka iyo dadka iyo diinta u anfaco Ilaahay noo soo saaro runtii aniga haddii aan ka hadlo afka gobolka mudug salaadiinta joogta waxaan aad u soo dhaweynayaa musharaxiinta musharax ka mid ah oo ah mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ahaa madaxweynihii hore galmudug wasiirkii hore arrimaha gudaha amniga qaranka waa nin aad u samir badan waa nin aan kursiga ku dhageyn waa nin haddii ummadda Soomaaliyeed uu wax qabo waa iska tanaasul badan marka waxaan u baaqayaa xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya inay noo doortaan madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed waa samatabici waa badbaadiyihii waa xilliga abaaraha ninkii maraakiibta noo keenay ee degmooyinka gobolka mudug iyo galmudug oo dhan abaaruhu ay ka jireen waxbarashada waa nin aad waxbarashada ugu dheereeya marka waxaan taageersanahay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed runtii madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaan fikirkayga ka hadlo ma jecli inuu ku soo laabto waddanka ninkaasi waa nin kursiga ku dhagay mar haddii qofka kursiga ku dhagana ninka waxa waa inuu samir badan yahay waddankii hadda waxa ka jira abaaro colaadaha ka jira wax uu ka qabtay ma leh marka badbaadiyaha ummadda Soomaaliyeed Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaan aad u taageersanahay soo dhaweynayaa hala doortaan la xildhibaanada ayaan u baaqayaa insha Allah ciddii runtii aan taageerana waa soo baxaysaa sidaan Ilaahay ka rajeynayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.